نوال محمد أحمد دقت سكول كفالة كان أكاديمية كلاس فون فور كلون كدوخي جوي كاسم حسوس في هاي محيط بروتين أنا ولا جينا هو يدي أنت بدن إلا رأى لك النقطة مروي شيل تقانا ها أنت كرين كفتان كرين كلا أيضا كبرتوها إن بدن محيط واحد شفت سكول بدن فرصة أنا نسين مركا aad baan nasiib badan aan dhigi karaa magacaygu waa Maxamed Xirsi Cabdullaahi maamulaha Ganaane Kafaala Academy iskuulkan waa iskuulada ugu waaweyn buu ka mid yahay magaaladan Kismaayo kalluunka waxaan u siinaa waa cunto oo hilib ah oo borotiin sare leh isla markaana aan lahayn cholesterol sida la sheego sidaa darteed waxaa loo siiyaa qadada ayaa loogu kaabaa oo ilmaha markuu qadada loo gurayo oo saxankiisa bariiska cunug walba la siinayo baa gabalkiisa loo raaciyaa kalluunka ah qadada kalluunka horta waxa horta loogu talagalay ardada primary-ga xataa iyaguusa ku filan mararka qaarkood oo ka go'aa waxyaabaha yaraaday waxaa ka mid ah soo daahista oo cunugu markuu ku dhacayo waxaan ku soo daahay quraac baan sugi karaan sugay quraacda iskuulkayba diyaar ka tahay subaxii waxaa diyaar u ah digirtaas habeennimadii baa la kariyaa oo si fiican loo bisleeyaa waxaan loo yaqaano fuulka waay oo maraq ahaan bay loo diyaariyaa kalluunkan qasacdaha ah baa lagu dhex daadiyaa oo lagu firdhiyaa loogu walaaqaa cuntada midda kale ilmaha muuqaalkooda waxbay ka bedeshay oo dee nolol bay gelisay oo caafimaad ahaan waxbaa iska bedelay maskax ahaan iyo dhankii fikirkan waxbaa iska bedelay waagii nabadii xataa maqli jiray waa shay macaana cuna malayga maalkeedna weeye cuna malayga inkastoo dhaqanka Soomaalidu dadku in badan ay kalluunka nacbaan jireen laakiin xilliga maanta lagu jiro isbedel weyn jira aad baa loo bartay